dhexdiisa ku furaalay oo live ku jirto cusbaan ku furaalay maxaa ka jira saaxiibkeed wuu cabsanaay ma fahan wax laga qorayna ma laha ربي بلغنا رمضان قرب رمضان واحنا سوا وفي نفس الميعاد يا رب نصوموا سوا يا رب العباد طلع الدين انت البغو وانا في السليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما انتي مالك استعدون كجوكتان وكين سيكي وإذن الله اسكو صولو قد ولا يسأل أولي بحيسان وحن كوري جيني أدو عافمات قبا إنا الصولابتي أولي بالصومان سيدا أنيو عافمات قبا هورتاد وصولابتي بيش البركيسان إلهي خير كذا هنا وافجيو إلهي هنوغو وضرميو خير بإذن الله الكريم وياهي سيدا عيوانك أكوسو أركتبا ما انت هوشو مسهلنا ايوه شكرا هاي فرتون بالبلاركا إيو عثمان دايما حنحنت وقتها السوشيال ميديا دابا سقطا waxaan arkay aan ku horeyno Ismaan Dayman waxaan arkay Ismaan Dayman muuqaal uu live ku jiray uu ka dacwoonayay balbalaarka ayadoo waliba la leeyahay live ka dhexdiisuba ku furayba taa marka waa soo dhageystay waa abooday subaxda ku xigto in aan ka soo hadlo oo aan tala ka dhiibto oo aan maaragtay dib u xalin iyo dib u dejin u sameeyo maadaama wixii ay noqdeen wax farahooda ay ka soo bixiyeen ay iyaga social media keeneen macnaha shaadi sharafteedo kale inaan ka hadlo diyaar u nihi waayo shaadi sharaf iyada intay timid social media may keenin dad ka hadlayay ayaa waxa lahayd maxaa idinka galay so iyada teeda ma mudno inaan faragashto laakiin markii ay dhacdo lamaanayaasha iyaga inay keenaan arintooda social media ay isqabsadaan ay public ka dhigaan dadkana ay yiraahdaan garsooro noqda oo naxaliya taa ayaan hal iyo laba ka iraadaa oo tala ah san ku sheegay waxaan hor arkay muuqaalka Ismaan Dayman oo ka dacwoonayo marwadiisa Fartuun balbalaarka naag nin qabo oo ninkana farax madax ka gelinaysa ii sheega bilinka qalad taas ajnabiga kaliya waxa uu ugu dacwoonayay muhiim ah inaan sheego waa wad aragteen gabar ayaa live ka u saarnay deedna gabadha waa iskira fiicnida ku fuudaan dheeysi isdiji furiinka ku fuudaanin uu ka dacwoonayo wuxuu lahaa waxyaabo waxa jiro aan uusan qaadanaynin ninka ragga marwadiisa markay sameeyso dabcan waxaan ka dhex aqrisanayay in uu hinaaso uu jiro waxyaabaha uu ka andacoonayna waxa ka mid ahayd inuu lahaa waxay sameysay in rag kale ay u tagto ayadoo marwo ah ay garab istaagnaato garabka la iska qabsado adiga waa dareemi kartaa kulli nin xaaskiisa u maseeray taa ayuu ku andacoonayay waan dhageystay waxaan sugayay balbalaarka iyadana bal waxay ku hadasho waa kan isaga wixii public keenay fartuun live dhexdiisa ku furaalay oo live ku jirto cusbaan ku furaalay maxaa ka jira saaxiibkeed wuu cabsanaay ma fahan wax laga qorayna ma laha iyada ma ay keenin balse ayadoo live ku jirta la qodqoday bini aadamka maxaa ku taqaanaa waa la qodqoday gabadha live kala saarneed waxay weydiisay arinta maxaa ka jiray tiri live lagu dhex furay balbalaarka waxay jawaab ku bixisay jawaab dadku ay ka yaabeen waxay tiri xaajigeyga looma qabanayo furiinkana maba jiraba oo waa uu cabsanaa nin cabsana cid wax ka qori mayso waa labadan bari dadka caanka ah ay live intay u soo galaan isugu hanjabayaan furiin waay maxaa dhacay si wax jiraan idinkoo wixiina heli kara in luuqyadiina iyo hoostiina wax xalisaan maxaa kalifaya in live intaas live kima noqdo meel lagu nafiso waa garan waayay qofkii xanaaqo live uu soo furanaa kii ilmo laga qaatay live uu soo furanaa kii naagtiisa isdagaalaan live uu soo furanaa what is going on war dadkan live ka u soo furanaysiin inay idin kala jiidaan dhibaato idin geliyaan ma ahane lagama yaabo in ay isku keenaan waa ku sheegay waxaan ku iri markay kugu kacdo oo live aad soo furatid aad isqabatiin xaaskaaga ama xaaska aad qabtid markay iyadana kula mid noqotay live soo furato labada qof ay isqabaan markay isku kacaan maalmaha waxa socoto labada dhinac ay live ka soo kala furanayaan tan kaliya ugu horeyso in live la isku furo tan kaliya ugu horeyso dad fara badan TikTok qabyaalad ay keentay buuq kale uu keenay dad caan ah oo live isku furay hadda iyo ugu horeyso way laakiin ma waxay aamineen qofkan hadii uu soo galo qofka uu ka andacoonayo in dadku ay leeyihiin adaa saxan qofkana ka qaldan
haddana qofka kale intuu yimaado uu isagana hadlaayo oo markiisa la leeyahay adaa saxan qofkaana kaa qaldan haddaba labadiinaba eber aa ku dhegan tihiin dadkan aa hor imaanaysaan aa gartiina u dhiibaysaan inay idinkala jiidaan mahane faa'iido kale ma leh maxaa idinku dhacay idinka hoosoos misku guursanoo kaale hoosoos soo iskuma qabin markaa is guursanayseen life maa soo gasheen ma waxaad tirahdaan markhaati naga ahaada gabadhaan dadka u sheeg inaa erabtid maa dhahdeen waa maya guuraa samaysateen waa degteen ilmaa leedihiin qaarkiin wad أنا فاهم واي وين أخذي لايف يصفرنا ويكد عيونوسا المال يقاتي لايف يصفرنا وأسكت عن لايف يصفرنا سوى حجران لايف كان تيك توك عن باس صباحي dadku ma waxay u arkayaan xal inuu nin inta soo fariisto rabo inuu naagtiisa live ku dhex furo naagta iyada live ma dhalay maya hooyo aabe leedahay gabaray adigana haddii ninkaaga aad ka xanaaqday ama aad ka carootay ama dhib un uu jiro laba qof oo kastoo isqabo waa isqabtaane live-ka maxaa ugu soo ordowsaa ciduu leeyahay daduu leeyahay dad qabsaduu leeyahay adiga dadaa leedahay live-kan aad kusoo ordaysiin soo ma ogidin ceeb idinka hartay oo idin gelaysa social media waayo beri adi waxaa rabtaa ninkaa markaa kala tagtaan nin kale inaad guursatid wiilow beri waxaa rabtaa gabadhaa markaa kala dhamaataan gabar kale inaad guursatid horreynka wuu jiraa waduu leeyahay guurkana waa uu jiraa wax ceeb ah ma aha wax dadkan hadda isfuraayo ay bilaabeen ma ahan ugub ma ahan waa uu jiraa furiinka in la isguursadana waa ay jirtaa waday leedahay diiniyan caadiyan dhaqan ahaan maxay tahay sababta keentay dadka hadda isguursanaya maalmaha labadan beri in ay xal u arkaan live TikTok in ay dacwadooda ku sheegtaan waxa ay qabaan ama live TikTok la soo dhex furooyaa why kaliya commentiga waxay u sheegtaan what is the benefit waxa ay sheegtaan kaliya markii qofkan uu live imaado oo qoftiisa uu ku dacwoonayo ama uu rabo inuu ku furo oo arinta gurigiisa live intuu soo dhex galo uu keeno yuu u wadaa ani waa garan waayey ma gabadhaa cid lahayn misagaa cid lahayn masaajid ma tagtino masaajidka idin roombe masaajidka wadaadada mu tagtino war live-ka dadkaana u imaanaysin idinkoon isdagaashaneen oo fiyow dadka qabyaalad iyo qurun iyo balaayo iyo idin caynaya maano dadkiina caanka ah see wax u wadiin dadkan dadka isguursaday ka fakalac ma rabtiin inaa isku dhacdaan inaa u imaadaan inay idinku qoslaan ee isku keendiraan maana faa'iido kale kama helaysaan war waxaan ku yiri dadka maanta jiro dadka isqabo ayaa ka fakala ay waxay raadinayaan ceebahoodii iyo inay juqjuqeeyaan iyo hadda waa guryaha dhisaya see u rabtiin marka social media ina u keentiin dhibtiina maanta idinku guri idin dhisan war dadka social media maanta joogo guryaha dhisan ay dumiyaan saa u rabtiin marka guri idin dhisan inaad social media dhex keentiin midda kale anigu waxaan garan waayey hadda dadka jiro oo live public intay soo galaan live gabadhi soo xanaaqdaba live ay soo furanayso kaale labada dhinac dad ma lihidin marka laiskin siinayey dabcan dad unbaa joogay haddii xitaa aabiyahoo eedan lahayn adeeraa jooga dabcan dadkaas unbaa haddana garti qaadaya haddii laisfahmi waaye bili-aadanaa layahe aniga waxaan la yaabanaya labadan beri hadhow marka arko waay gabadhan soo caroonayso oo TikTok ku nafisayso waay wiilkan soo caroonaya oo TikTok ku nafisaya no it's not good idea waa fikradtii ugu xumeed waa fikradan labadan beri aan arkaayo wallahi been kuma sheegaya wallahi waxaan arkaya xitaa maamo weyn iyo maaragtay iyo oday weyn oo isqabaan oo life intuu u soo koro dhahay naya wallahi qabil hebelkaas wax ma ka sheegi kartid kufurta billahi haleeyo kufurun hataa kufuraa wallahi life kan xil waxaas ma diiday heblaha intaas ay furanta macbuud al-ardiyo waahiyaa warsay wax u jiraan ogow dad fara badan oo idinku dayanaya xitaa waxaa idinku dayanaya dadka aan caanka ahayn normalka waxay sameyn doonaan markay isku kacaan inay live soo furtaan really laakiin aan ilaa hadda waxaan garala ahay gabadha qaba isku dhacnay maxaa live keenayo yaa u socdaa
war live kana aado yaa waay adeerkay ma u socdaa hooyadeed ma u socdaa live kan baas yaa ugu balmiya u socdaa tani You don't know now. iyada xanaaqday live timid live kii kula balantay ani hooyadeeya aabaheeya it's not good idea it's not a good idea fikrad aad iyo aad u xun maalimahana waxaa socoto caanimada awal haddii ku jiri jirtay qof kaloo kaa sareeyo caana ku dhig ama isa soo qaabi ama wax xun sameey haddii ku jiri jirtay hadda ma aha caanimada hadda waxay soo gashay maalimahan oo shidan kabaliska labo aan isku guursanayaa dan kalena ma ahan labadooduba riyadooda waxay tahay kabal heblaayo iyo kabal heblow in la dhaho ay isoo wada caanbaxaan caruur yaryar arkooya romantic jilaaya nahihe canka waa iska marmarinaya waa isqabaa marka la dhaho yaa taagana aniga oo yaa markaa aniga nuush ma lahan be kuwaan hadda isqabaan xilligooda markaa joogay nuushka hoos xataa ma iisoo bixin nuush gadaal usoo aqriya waxaa ka wada waa fahmay ama see waxu jiraa marka dad aan da-dooda markaa fiiriya ayaagooya wax lidhooyaa kabal heblow waaye waa isqabaan heesaa la soo saarana hantayna kuwii jeclaa maxaa xane bax dugsi aad weli ma gaarin be You don't know now. fartuun balbalaarka ninkaaga waa jeceshahay waa lagaa dareemayaa anyway waxaa idin dhihi lahaa wixiina oo soos u dhamaysta cismaan adigana waa jeceshahay xaaskaaga waa lagaa dareemaa maseer haddii aad maqashid waa jacayl macnihiisa cismaan diamond qofku jecela ku waaniyo gurigaaga kuu dhisnaado inuu jare kuu haysaa marwadaada saa noo sheegtay kubadda deji wax kasta oo dhaco hadda ka bacdi social media ka ilaali in aad keentid dhibaatadaada farxadiina waa noo keeni kartaan sankaba hadda koorkaa dhuuqda caadi waaye timaha baa kaa leeftaa deerabta laakiin hadda ka bacdi problemkiina si hoos ku dhameeya ha horkeenina dadka taasaan fikrad aan idin siinaa ربي بلغنا رمضان قرب رمضان واحنا سوا وفي نفس المياه